السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت له وإن السلام يا رمان وحان إلهي سبحانه وتعالى إذن كجبرية إن سنة كان وإذن كجديجو سنة عافيمات برواقو ينبت جلي حنبارسن إن شاء الله. ما أنت وحان ربا إن كهد لو application لو يقانو 1 year window application وأي ولا لها كحرا عبدوش productions يسوع صدين. marka waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex qodob. qodobka koowaad waxa waaye horta waa maxay programkan. qodobka labaadna waxa waaye programkan yaa wax ku keeni kara ama shuruuda laga rabo qofka maaragtay applicationkan xareyn kara iyo dadka loo xareyn karo iyo ayaga naftirkooda shuruudaha ku xiran. haddaan ku hormaro programkan la yiraahdo 1 year window applicationka yaa loogu talagalay. programkan waxaa loogu talagalay dad qaxootinimo ku yimid dalka Canada oo markii ay wadankan soo aadayeen ama applicationka ay xariisanayeen ku xusay in caruur ayaga ay dhaleen ama lamaanahooda oo maaragtay ka maqan yahay. dadkaas markii ay wadanka yimaadaan ayagoo kaligood ah ama caruurtoodii qaar kamid ah ka soo tagay ama familkooda qaar kamid ah ka soo tagay markii wadanka Canada yimaadaan ayaa loo ogol yahay muddo sanad gudaheeda ah inay dadkaas ku keenaan wadanka Canada. maxay tahay marka shuruudaha ku xiran dadka waxa keenaya? kow waa inay yihiin permanent resident, yani mar haddii permanent resident nimadii ay ka baxaan oo ay citizen noqdaan طبعا sanadkii baa dhamaaday ma keeni karaan. labo waa in ay ku nool yihiin gobolada Canada oo aan ka ahayn gobolka Quebec waa inay ku nool yihiin. sidoo kale sidaan xusayba waa inay yihiin dad dalka ku yimid qaxootinimo. tan ugu dambeysana waxa waaye in ay xareeyaan ama ay dalbadaan programkan oo haddii aysan garanaynin ay informationkiisa raadiyaan kadibna ay xareystaan. intaasoo shardi ayaa ku xiran. haddii aysan xareysanin sanadkaas gudahood programkan kuma keeni karaan familkooda. yaa waay marka dadka ay keeni karaan? waxa uu keeni karaa qofka tusaale ahaan haddii maalan odagii iyo caruurtii ay soo raaceen oo xaaskii ay ka maqan tahay horeyna uu u sheegtay in xaaskiisa ay maqan tahay uu applicationkii hore ugu daray waa uu keeni karaa xaaskiisa. haddii xaaskii iyo odagii ay soo raaceen iyo caruurta qaar kamid ah laakiin qaar kale ay maqan yihiin for whatever reason طبعا dadka qaxootiga waxa dhici kara in dadkii kala lumeen min darada raadeeda ay u imaan waayeen meesha markaas qaxootiga ay joogeen ay u imaan waayeen waa ay dalban karaan caruurtooda. caruurta laakiin waa in da'dooda aynan ka weynaanin 22 sano marka applicationkaas la xareynayo. sidoo kale waxaa la keeni karaa oo qofka keeni karaa hadduu horey u sheegtay caruurta asiga uu soo korsaday oo xaaskiisa ay dhashay ama caruur familka ay soo korsadeen odayga iyo islaanta ay soo korsadeen laakiin ay xaas ka dhashay sidoo kale waa lagu keeni karaa programkan. waxaan mar kasta ku soo celcelinayaa aan hoosta ka xariiqayaa dadkaas waa in ay yihiin dad horey applicationka loogu xusay. intaas haddii shuruuda ay soo buuxiyaan maxay tahay shardiga kale laga rabo? shardiga ugu dambeeya laga rabo waxa weeyaan ay fiirinayaan maxaan ku iraahdaa dadka ka shaqeeyo immigrationka waa in ay hubiyaan in dadkaas ay yihiin dad dalka la keeni karo oo xag ammaan ahaan wax dhibaato aan maaragtay inay ka imaanaynin keenistooda. labo in dadkaas aysan ahayn dad ka tirsanaa kooxo gangs ah oo maaragtay dadka dhibaateyn jiray inaysan kamid ahayn. sidoo kale in aysan ahayn dad dambiyo xuquuqda aadanaha ku la xiriira galay inaysan ahayn oo halis maaragtay ku ah mujtamaca. sidoo kale waa in dadkaas caafimaadkooda uu fiican yahay cudur maaragtay dhibaato dalka ku keenay ama dadka ku keenaysan qabin. iyo sidoo kale inaysan ahayn dad macluumaad oo khaldan aanan bixinin. haddii dawladda ay ogaato in macluumaadkaas ay khalad yihiin مثلا lagu sheegay applicationka in caruurtaas uu dhalay muxuu ahaa qofka markaas raba inuu kaxeeyo laakiin la ogaado in asiga uusan dhalin
taas waxay keeni kartaa in dadkaas aan la aqbalin. qofka halkan joogo waxaa laga rabaa in ayaga ay damaanad qaadaan dadkaas dib u dejintooda. 1 year window applicationka waa kaasa qofkii rabo in uu xareeyana waxaa waajib ku ah inuu xareeyo ka hor inta halka sana aysan ka dhamaanin. wixii kaloo macluumaada insha Allah halkan ayaan kula wadaagi doonaa. waan idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.